gabagabadii wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ambassador Maxamed Aadan Jaamac Galaal anagoo kaaga mahadcelin waqtiga qaaligadan siisay waxaad ka soo jeedaa qoys gabiyaa ah oo qoyska reer Galaal dad badan waxay isweydiinayaan gabay ma ku cabir lahaa Galaal xaaladda siyaasadeed mandaqadii Soomaaliland ka taagan wax gabayaa ma ka tirisay mise bayo suugaan oo aan anigu leeyahay oo aan tiriyay oo malaa xilligan dalka siyaasadda ka jirta ama wacyiga ka jira ka turjubaya gabay la yiraahdo samawada oo runtii ku yara dheeraanaya gabaygu wuxuu galay iyo wuxuu gudo inta hore laakiin marka dambe nuxurka u dhacaya iyaan halkan ka marinaya marka sidaa iyo dhageysi wanaagsan in uu dadka galo oo anfacana waan rajaynayaa gabaygu sifaa gabayga hayba murtaal lagu sargooyay wuxuu ka hadlayaa wuxuu gabaygu galay iyo gudo inta hore su'aal iyo jawaab buu naflu kala saxeexday sabab iyo ujeediyo danbuu suura geliyaa seefaha colaadiyo marbuu sulub ku keenaa oo aad socdaal iyo xafide subax u dhiibtaa samo iyo marbaa loo tirshaa saamax nabadeed saadaashadiisa ninogi dibinta saaraaye socod iyo xawaari iyo kabtiyo sare u roor boodo sangaha ku caanootixaa lagu siyaartaay soof geela sidig iyo rati iyo sanye iyo loola sool iyo dhulkay mari jirtay iyo siiga iyo dhuure intaa ay saqaafta arlada gabaygu soocaaye saafida haween iyo marbuu gabadh sifeeyaaye qaran seexday suugaa kacsha iyo xarafka siinleeye sikiirti iyo marbuu baacsadaa xukun sawaabnaaye sawdkiiyo warkuu faafiyaa sare u qaadaaye intaa aan sifeeyuu lahaa sabab nasuuleedi oo weliba saari iyo naxwiyo saayid weheshaaye sayidkii taleex iyo rag baa suufi ku ahaaye saahid ina qamaan baa adeer saababayn jiray salaan iyo gamuuti iyo qamaan sawdkii cali jaamac saalax iyo raggii looba diray way susubiyeene samay baaba yowlana ridada gabay ku siiyeene saaxil buu ku kiciyo xuseen waa su'aal dhigay waa xuseen xasan rooble samatar baxnaan ama samatarillow samatar iyo waxaa tirin yiqiin ina saleebaane qaasim baa siduu cali sugulle heeluu boqroo nala sad weeyaane qaasim baa siduu yahay yiqiin ama saxiisiiye samawadahad raawaa baryaha saajac ku ahaaye murtidii suldaan ka ahayd sagal arooryaane muuse ina galaal bay sannado dhagaha siiyeene sa'da gabayna hinnig loo saxeex sabanadiisii hinnig waa cabdilaahi warsame xasan awowgay hooyo sa'da gabayna hinnig loo saxeex sabanadiisii sinji iyo hidana waygu yaal labada seedoode caawana halkan saarayaan laba saluugayni maan sameeyo waataad wax badan iga sugaysiin adduunyadu sideedaba baryaha nama sareedayne saranseerka dunida runtii suufiyaad dhigaye saylac iyo hargeysa iyo berbere sabada beesheenna sawt iyo waqooyi iyo galbeed surinka gaaroodi soomaali oo idil wakhtigu yarahe suuldaariye siigada abaaraha dhacday doqon ku saamayne sababaha dalkii helay ka culus saxalka caydheede sir la sheelay sooc iyo qabiil hadal la soohay nin siyaasi hadal la soohay dar siyaasi sheegta dadkii sudhaya waabee anigu siyaasi oo dhan sheegi maayo laakiin kooxa ka mid ah iyuu ka hadlayaa gabaygu dar siyaasi sheegta dadkii sudhaya waabee waa waxaa sarbeeb iyo qallooc soof ku raadsadee waa waxa dadkii wada sixray waa kuwa dadkii wada sixray ee siibay oogade waa kuwa raggii kala safay ee la isku seegaaye sakaraadka waa kuwa ka dhigay qarankii socnaaye dadka lama sursuuro nin ogi waa sasabayaaye sambabka iyo waa kuwii wadnaha iga dul saaraaye kama maarmo saaki iyo beriyo saa dambe iyo goobe sidaasaanay dadku u kala maarmaynin dee sidaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi